بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن wanaagsan dhammaan asxaabta meel walba joogtaan kuna soo dhawaada shabakadan Xiis Groups waxay bilaabi doontaa casharro taxane ah oo aad daawan doontaan maalin walba oo sabti ah haddii Ilaahay ka raali noqdo maanta waxaan qaadan doonaa cashirkii koobaad oo ku baran doono 10 ama 5 website oo aan laga baran karo Ingiriiska ee maanta soo gudbinayna waa 5 website oo laga baran karo Ingiriiska macallin la'aan website badan oo 5 gaaraya oo soo gudbiya casharro taxane ah dad badanna ay ka faa'iideysteen ayna ka barteen Ingiriiska ayagoon u mareynin inuu hor istaago macallin ama uu maalin walba macallin cashar bixiyo waa online waxaad booqanaysaa oo kaliyahay website-ka kadibna waxaad la degaysaa casharrada aad ku sameynaysaa download oo free ah wax lacag maahan yaan lagu dhihin online kuma lacag haddii qof uu ku bixiyo lacag isagoo macallin hor joogo haddana faa'iideyso waa Ingiriiski maanta waxaan idin soo gudbinayaa 5 website oo aad ka baran karto Ingiriiska waana lacag la'aan waad booqanaysaa oo kaliya website-ka kadibna waxaad la soo degaysaa casharrada kadibna waad akhrisanaysaa muuqaaladana waad fiirsanaysaa waa macallinkaas waad la socon doontaa marka 5 website ayaa idin tusayaa qaabka ay u shaqeeyaan iyo qaabka aad kala soo degi karto casharrada ayna tusabto software website-ka koobaad koobi baan leeyahay linkiyada iyo halkaan ku diyaarsaday waxaan tagayaa halkaan browserkeena aan ku leeyahay besti waan raadinayaa search aan u dirayaa ESOL course free English learning ujeedaa إنه عادي ما free online course English for beginners elementary English labada qayb English waa kala qaado sida ogtiin waa beginner iyo elementary labada waa ka barata kana marka website-ke listing inaad dhegeysato English for work inaad barato Englishka lagu shaqeeyo dadka qof shaqeeya oo aad company leedahay ama businessman aad tahay ama waxay rabtaa aad shaqeydo English for work Englishka loo isticmaalo markaad shaqeynaysid Englishka isticmaalaysid ayuu ka caawinayaa okay si gudub grammar aad u jeedaa waa grammar oo taqaan waa qaybta ugu muhiimsan Englishka lagu barto okay vocabulary u jeedaa isna songs u jeedaa songs iska dhaafi kartaa okay life in the UK waa warbixino aad akhrisanaysid laakiin waa muhiim inaad akhristaan maxaa yeelay waxaad ka faa'iideysaa ereyo fara badan oo aadan arag macnahooda waxyaabo badan ayaa kaga baxaya qaybta ugu muhiimsanna waa grammarka qaybta labaadna waa sheekooyinka inaad la socoto ama aad akhrisato maxaa yeelay waxaad ka faa'iideysaa ereyo badan aad aqoonin weliga arkin ayaa wax cusub ayaa ka helaysaa marka sheekooyinka badanna waa la akhristaa faa'iidooyin badan ayay leeyihiin Ingiriiska haddii aad rabto waa inaad Ingiriis barato laakiin dad ay rabin waa adoweys oo samayn kartaa ka waarna marka waa iska kala sugaraynaa waxaan aadaynaa website-ka labaad waa English grammar website-ka labaad only grammar ayuu ka hadlaa marka waa muhiim inaad la socotaa mar walba English grammar secrets waa kan ahaa waxuu ku hormarinayaa 12 tennis waa present continuous present simple or continuous past simple past continuous past simple or continuous waa irregular verbs present perfect continuous waa kaasa can shall waa grammarka ayaa ka baranaysaa markaad ciwaankaada rabtid waad ku soo dhafanaysaa tusaale ahaan haddaan present continuous aan ku dhufto waan gudaha u sii galo okay waxaan ku qeexay marka xawleeyo the present continuous is used to talk about present situations which we see as a short term or temporary. We use the present simple to talk about present situations which we see as a long term or permanent. In this example, the action is taken place at the time of speaking.
marka casharkii waa kaasaha waa diyaarsan yahay waa only waa akhrisanaysaa haddaad rabtid waa baritaan garaysanaysaa ama waa daawacan kartaa qaybtan midigta fiiri marka wuxuu ku siinayaa exercise 1 exercise 2 exercise 3 saddex afar exercise ayuu kuu dirayaa marka waa cashartaa barato waa qasab inaad ka shaqeydaa exercisekaas okay aan gudbo kan kale kan saddexaad aan gudbo kan saddexaad waxaa lagu bartaa hadalka speaking waxaa la yidhaahdo ayaa lagu bartaa sana insha allah shanta warshad waxaan filayaa inay anfici doonto qof walboo daawaday casharka ka faa'iidaysanaya su-aashiisa ama waxay casharo u baahan yahay jiraan oo ii soo qori karaa commentiga ayuu ii soo qori karaa anna waxaan idin ballan qaadayaa linkiyada hadda ayna tusayo ama website-da ayna tusayo shanta website-ba linkigooda waxaad ka heli kartaan cashirka qaybta ka korreeda oo qoraalka fadlan isfaan oo akhri mar walba oo aad aragto muuqaal ka yimid xisb groups waxaad akhrisaa muuqaalka qoraalka ka korreeya waa kana leen indhakiisa waaye kan waa diyaarsan waa indhakiisa lagu diyaarshay waa kana marka talk English data kana marka lesson 1 about me cashirka labaad waa my friend cashirka saddexaad waa my betis waa rain day on the farm at the back Maris day busy Saturday waxa weeye 10 cashar waxa weeye okay waa in waran 500 oo cashar waa 500 cashar marka ninkii akhrista ama qofkii ka faa'iideysta door waa way basic course course-dan waa runtii hadda soo about me ah u dhufta cashirka koowaad aan si booqano si dadku ay u arkaan waxaan sameeyay real inay ciyaar yihiin okay wuxuu leeyahay soo maqalkan daarna marka I am Lena. I am a student. I am from South Korea. I am 20 years old. I study English. I live in an apartment. I live in the city. I take the bus to school. waan filayaa inaad maqasheen okay marka gabadhan waxay ku hadlayso iyagoo qoraal ay ku soo qoran yihiin waa kana I'm a student. I'm from South Korea. I'm 20 years old. I study English. I live in an apartment. I live in the city. I take the bus to school. وأنت شفتي سلام واحد waxaa jira waxa la sameeyay qoraalka waxa la sameeyay dad waxaa jira day maqalka dhageystaan maqalka ay fahmaan laakiin maqalku ay fahmeen laakiin ma yaqaanaan qaabka loo qoro marka waa qasayna bartaa how to read and how to write sida loo akhriyo iyo sida loo qoro waa best way to learn English language hatigana website-ka faraasna waa speaking oo ka dhisayasna speaking ka dhisaya okay asxaabta wixii su'aalaha qaybta commentiga ay igu soo gudbi karaan saharay kugu sheegay page xis groupsna ku soo biira saado shan cashar far badan like saara page-ka like maahan like waxaa muhiim oo inaad ka faa'iideysto casharada ka baxa page-ka commentina noo reebto waa kana sana waa هذا page oo diyaarsan 110 kun phrases 1500 oo common words-ka unbelievable okay where are you from waa 10 go'aad waa 110 afsan ku jirta iyo 1500 phrases website kana kii hore ka muhiimsan sababtoo ah wajida wuxuu leeyahay ereyga qoraal oo qoran yahay soo maqalkiina waa ku qoran yahay هذا الشغية اوكي وebsite شاناد ugu dambeeyay aan tagno website kan waa website muhiim ah website runtii aan ka faa'iideysto casharadiisa aan la socdo website kan casharadiisa waa isbuuci waa casharo socda weekly lesson waa kana this week 50 lesson and
أسبوع أنا شكل بحيي كان أبو كلية لكن نحن مكر بقينا نوبسيتك أسير الرياض لينك يا لينك أنا ما يبغى قضي كلا مرة وبسيتك تصيا سوي شغاية يسيرها Advanced English Learning Advanced Free Online English Lessons سوي جدا كان أمرك قبتان بدحته فيري بدحته Weekly Lesson Vocabulary Grammar Book Verb Tense Articles وجدا مشاس كابت كدور مرك Reading Room Listening Language Okay Student Forms English Schools You can go anywhere halkii aragtay ay ku taala way mar hadii website aad dhex joogtada website aan ku faa'iideeyay meesha aad dadka aad ama akhriska baro ama qoraalka baro ama cashar socda la soco aday ku taala way akama marka shanta website qaabkaas ay u shaqeeyaan dadkuna hadda aniga ma si dhex gelin waayo waxa dheerahaya daqiiqadaha muuqaalka laakiin waxa uu talagalay dadka inaan tuso linkiyada aan u dhigo muuqaalka korkiisa Facebook page-keena xisb groups aan u dhigo YouTube ka soo kale qaybta description ay kala socon karaan marka waxa uu talagalay dadka inaan tuso nafsiyeedka ku faa'iideeyo laakiin qofka inuu si dhex galo waxa rabana oo ka raadsado qofka saa laga rabaa hadii aanani martusiyay inuu si dhex galo wax badan ka faa'iido saa laga rabaa ka asxaabta waxaan ka codsanaa page-ka Facebook ee la garayaan channel-ka sidoo kale subscribe ay ku dhahaan عشرة أنا يسير قريان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.